بسم الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed rag iyo dumar meel aad dunida dacaladeeda kaga sugantihiin waa Cabdisalaan Gentleman iyo barnaamijkii aragtida horta ah oo aan kulli galabta ku qaada dhigi doono cabar intii fikirkeyga ama aragtidayda ah musharaxnimada Mukhtaar Robow iyo khayrkii iyo dabcan guud ahaan dalka Soomaaliya sidoo kale bartan waxaan iyagana aan baaqo marin doona bulshooyinka reer Puntland oo iyagana dabcan arahdayda iyo wixii geeb gudboon iyo doorashooyinka ku soo foole iyo musharaxiinta barta ka tartamaysa aan iyagana halkan baaqo marin doona waxaan kaloo ka hadli doona ra'yigayga iyo fikirkayga sidaan u arko multi party system iyo xisaabta faraha badan leh dabcan anagu reerays shiidaya ama dadkan isriinaya shaqayta lama dabcan barnaamijkaygu waa barnaamijka aragtida horta waxaan kaloo marka koobaad awil Farah Hashi aad baan ku salaamaya soo dhawaada dabcan hanad godane adigana salaan sharaf iyo sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkayga isaga iyadana sidoo kale aan ka madhnayn beesha Gabooy oo xaafada ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa ee caasimadda u ah maamulka Somaliland ama Somaliland oo dulmi la isku wada raacay oo lagu wada socdo guud ahaan inta Allah wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh hadday yihiin xisbiga kulmiye ee xukunka haya ama xukuumadda Somaliland wadani hadday yihiin ucid waa dulmiga isku wada raaceen ee guud ahaan Soomaaliya oo dhan Yaasiin طبعا يرجع على هذا ولا برنامج كذا سوكري وسلامته وانا بشدة ملا سلامه يدنا ماشي وكير شفته كستان شعلانه برنامج خورس غير قلبه طبعا مثلا ايو صدق كغار مع صوبته وحا هلكا سوبان كهادليا برنامج كيغون سي دينيا وانا سكا بخايا ان شاء الله تعالى احمد عثمان si guud baan idin wada salaamaya waxaan idinku wada salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed awil kulli iyo gobanimo فهيمة فلاوة طبعا وانت اركون كومن كود برتا اي سو مaro ayaan arkaa inta badan walaalayaal waxaan marka koobaad ee kala iyagana aad ugu tacsiyadeynaya dad dabcan qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho degmada Yaaqshiid oo iyadana imka dabcan lagu soo waramayo waxaan leeyahay waan ka xumahay bulshooyinka Soomaaliyeed Said Haji ee barta iyaguna kuwa ku dhaawacmay waxaan leeyahay Allah Raxmaanka ha u boogo dhayo kuwa ku dhintayna Allah Raxmaanka ajna firdawsa hageeyo waa dadkeeni guud ahaan dalka koona waanu ka helnaa akhbaarta waanu la soconaa barta waxa la sheegay kolonyo ciidamada ah amisom oo mariyay in qaraxa la beegsaday oo wax runtii dadka dabcan masaakiinta dhibaato inay soo gaadho wadhigeeyay waa dadkeegii meel ay dunida dacaladeeda kaga sugan yihiinba markastana waan ku celcelinaynaa qolada amnigu inay pressure saaraan oo awood saaraan oo runtii wixii wanaagsan ee xukuumaddu ay ku talaabsato oo soo dhaweynayna wixii dadka dabcan ku ah mudaro ama dhibaato ku ana waxaan leenahay war hal hagaajiyo waxba ma dhibtay waxbay wanaagsan waxaan u soo noqonayaa aragtidayda iyo Mukhtaar Robow horta ummadda Soomaaliyeed waxayna daashaday ku jaqsi iyo ku xume iyo ku jaqsi aragti ma aqlina maaha garaadna ma keento haddii uu ahaa dadka qaar waxay ku doodayaan Axmed Madow oo kale Axmed Madow khalad baa dabcan inuu xukun qabto oo bulshada hogaamiyo Cabdisalaan ahaan aragtideeda ayaan anigu ka hadlaya aragtida maanta in laga hor istaago sababya in laga hor istaago ninka la yiraahdo Mukhtaar Robow sax baan u arkaa waana ku taageersanay ama xukuumadda ha noqoto ama wasaaradda amniga ha noqoto waxaan u arkaa aragti saxan oo saliima marka qabyaaladda iyo hebel ku xume iyo waxa laga yimaado dambiilo oo dhan iyo dhiigacabna dalkani uma baahna haddii marka hore mistake loo galay oo khalad loogu sameeyay in rag kamida hadduu doono Sheekh Shariif ha noqdo waxani waa mabaadi dadka Soomaalida waxa iskaga khaldan waxyaabo yar hoose oo qofku wax uu dhaliili karaa wax uu diidi karaa laakiin mabda dabcan waana waxaan inta badan ku soo celinayaa war anu qoliyahan aan ka soo jeedo ee reer waqooyiga ee dabcan reer Hargeysa ama reer Burco tema nabci qabiilahaan uma nici karo waa dadkaygii uma nici karo shakhsiyan musabixi sinaayo laakiin mabda'an la qaatay 1991 baa soo jeeda oo la waa khalad dabcan mabda'an argagixisaduna waa mabda' argagixisaa nin qaatay mabda'a dadka hana laayo oo dadka hal dilo
kii hore iyo kaniba ummadda wax allaala waxay u soo wadaan dabcan ayaan jirin waxaana wanaagsan dadka noocaas oo kale ah in discrimination lagu sameeyo maalintii hore ummadda Soomaaliyeed intii la socon jirtay ee barnaamijkii ku taxana markii xitaa la soo dhaweynayay taladeedu waxay ahayd xukuumaddu ama bini'aadanku uu khaldama khalad oo ka soo noqda maalintii la soo dhaweynayay dadka qaar baa lahaa waxa laga dhigayaa madaxweynaha koonfur galbeed arrimo noocaas haddana Cabdisalaan hay waxa lahaa waa hadalka lagama sinaysto lagama baydhbar ninkan dabcan xogo badan waa laga helayaa way fiican tahay xukuumadda ama xudur ha ugu tagto ama ha soo dhaweysto laakiin la yiraahdo bulsho hogaami oo bulsho ha hogaamiyo waa misteegyada iyo khaladaadka Soomaali ka dhaca annaga askarina qabsaday askari dambiile kama fiicna askarina askari kama fiicna dhiigacab kama fiicna waxa la wixii al-shabaabina ama al-shabaaba waa dambiilayaal waliba u bareeray hadduu yahay ka reesh qasxaab hadduu yahay ka qabiilada ka hadlaysan qofka qabiilka sitow qabiilada aakhiro dhinacaaga la dhigi maayo adiga oo quraaya xisaabtada lagu weydiinaya dadka uu laayay dadka masaakiinta uu dhibaatada u geystay dumarada uu dooxay dadka uurka leh ee uu laayay masaakiinta uu dilay wallahi waa lagu xisaabinaya ninka maanta uu doodaya waan arkay dad badan oo u doodayay Mukhtaar Roob waa dhiigacab kale oo dambiilayaal ah oo waa dadka Soomaaliya ka digi weyday waa dadka xaaraanta ku naaxay waa dadka ku shaqsi mooyee aan fikir kala lahayn war dunida qaar baa salaada ku soo qabsanaya hay ugu soo qabsanina anigu haddana Cabdisalaan qof salaada ku soo qabsada ma doonay waxaan ka hadlaa aragti iyo ra'yi baan ka hadlaa waxna war waxa hal wanaajiyo laakiin aniga nacayb ka hadlaya dawlad hala dumiyo dad hala laayo dad waxa lagu sameeyo fikirkayga ma waxaan jecelahay in hore loo socdo oo barta la taagan yahay hore looga sidhaa waxa loo dhiibay Mukhtaar Roob bulsha loo dhiibay yaa damaanad qaadaya ninka damaanad qaadaya waa kuma Mukhtaar Roob tomorrow inaanu argixsan noqon karin waa xidhiidh bay leeyihiin kii dadka leenaya Burca ka tagay ka Muqdisho ka tagay ka Garowe ka tagay ka Muqdisho jooga Xasan Daahir oo iswa dambiile nimankan gebigoodaba sheegta taariikhdooda soo raac dalkii Soomaaliya 1991 markuu burburay meel intixaab la baxeen maalin waxay la baxeen al-Ihsaan maalin waxay la baxeen al-Shabaab maalin kale terrorist bay noqdeen maalin Soomaaliya wax allaale waxay ku soo kordhiyeen haddii laga tagi waayo qof kastaaba ra'yigiisu ka hadlaya culimada Soomaaliyeed ee laga nabad galay markii dambe xitaa markay ku baxsan waayeen meelihii ay ku noolaayeen ama waxay doonaan ku akhristaan ama mawlida ku akhristaan qoryaha qaatay waa nimankii qaadiriyada ahaa saalixiyada ahaa laakiin qoladan yaryar ee maalinba kalar noo soo qaataa maalin ganacsiga ku qabsanayaan oo dalka maanta amaanka dalka iyagaaba haysta communicationkii dalka iyaga ayaa haysta sidoo kale iyaga ayaa haysta wixii loo oran jiray Allahu musta'an halka maanta xitaa dalku uu ka degi leeyahay telesom yaa haysta iyaga ayaa haysta war dadkan iyaga wax soo iyaga isku ideology nimankani wax dunida maanta aan ka suuroobaynin oo dabcan ayay wataan cidna ummadanayaan ummadda waxba uma qabtaan wanaag uma sameeyaan dadka jilicsan xitaa inflationka dalka ka socda qayb ayay ka yihiin terrorisku waa iyaga inflationka ninka wada waa iyaga kuwa al-shabaab u fudaydiya ee accesska u yeela inay adeegsadaan communicationka waxaan Hargeysa iyo Burco waxa la yiraahdaa Allahu musta'an waxa lagu sheegaa barakaad oo kale koonfur markay joodo hormuud baa lagu sheegaa sidoo kale baanankii iyaga haysta iyo wixii loo oran jiray xawaaladihii oo riminta waxaas oo dhani waxa weeyaan waxa dalka markii dalkii burburay war ragii hore ee Soomaaliya waxaynu arki karnaa isku haysteen ummadda Soomaaliyeed wax fahmay hadduu yahay Allah u naxariistay Maxamed Salaad Barro kale dabcan iyagu waxay rag position bay isku haysteen ama kursi ciidida ha noqdo Cabdilaahi Yusuf ha noqdo Allah Maxamed Salaad Barro ha noqdo wax kuwan waxay isku haystaan interest waa interest iyagu leeyihiin bay isku haystaan maalin argixisay ku noqonayaan maalin waxay ku noqonayaan iskuulada yaa dadka dhiba bal iskuulada imika tusaalahan Hargeysa Burco kale inaanay naxariis lahayn nimankaas aniga igama baxsan way mabaadi carabta laga keenay oo carabaysan oo Soomaalinimada ka baxsan ayay guud ahaan aaminsan gebigoodba war inna yar oo dhalatay oo gebigeeduba 9 jira
ama 8 jira ama inan yar oo 8 jira oo reerkoodii aan dabalba loo shidin ayaa waxay ku odhanayaan intay iskuul weyn samaystaan oo iyagu meel ay ka keeneen garan maysto kuna carabaha muslimnimadan saxdaaba kuwan hana laga qabteen ayaa waxay ka qaadaan $20 $30 mid Hargeysa ku nool mid Burca ku nool oo aan waxba haysanba ninka qolyaha u dooda terrorist baan u aqaanaa fidmada dalka qayb bay ka yihiin haddii ay ummadda Soomaaliyeed u turayaan dadka ayay wax tari lahaayeen dadka ayay wax u qaban lahaayeen waana la dagaalamaan reer Puntland iyo reer Somaliland waxaan ku amaanayaa inay kuwa horta iska sifeeyeen walaaladeeda koonfureed ee Muqdisho ku nool ee Kismaayo ku nool ee ku nool beledweyne ku nool warkii hore idin qabsadeen oo waad arkaysaa ka maanta Kismaayo la sheegaya dabcan nabadgelyo dadka samaystay reer Kismaayo samaystay laakiin wuxuu hoos u wado ninka la yiraahdo Axmed Madoobe jooga dabcan Kismaayo jooga dadka qaar baa u dooday wax kule Axmed Madoobe maxaa loo diin waay waa dambiile kale waa kan oo kale haddii maanta Axmed Madoobe halkaa qabsado kanina uu qabsado meesha la yiraahdo Baydhabo way isu boodaba dalkaba dabatana iyagaaba la wareegayba wallaahi maanta ayay u baahantay in la soo daba qabto waan ku taageerayaa cid allaale hadday tahay international community waan ku taageerayaa maanta talaabo fiican ama warbixinta xukuumadda ha siiyaan xukuumaddana waan ku taageerayaa ninka u doodaya Mukhtaar Roobowna waa gacan ku dhiigle waa dadka iyagu u soo dhiibi jireen qaraxyada waa dadka iyagu dadka leen jiray dabcan intaas oo idil waxa weeyaan waa argagixisadii oo is urursatay ka kale u doodaya Kombergrania aqligiisa iyo garashadiisa gaab waa qof ku xumee hebel baa waxa la qaban waay war maskaxdiina iyo aragtidiina xor u noqda qofka waxa fiican inuu maskaxdiisan iyo aragtiisa ku hadlo laakiin inuu saxdeed jeer Soomaalida wadeegas aragti baa laga dhiibinay dabcan waan la socdaa meelo badan waan daawada haddii nimanka musharaxiinta kuwan madaxda ah guud ahaan siyaasiyiinta oo dhan waan la socdaa qof baa wax qoraya dabeetana qofkani aqligiisan iyo garashadiisa waxba kuma qiimeynayo laakiin qofka kale waxa uu yiri ayuu wax kaga sii daba oranaya adu maskaxdaada ma lahayn mid aqliga kale ahayn Mukhtaar Robow waa kuma shalay buu shaadinaha al-shabaab buu ahaa argagixiso ahaa ninkii dadka leenayay buu ahaa in xukuumaddu wanaag buu sameeyay dambi baan lagu qaadin waxa baan qabaaba aanu qadin xukunka leedii bilaa gebigoodaba walaahi waan wada xidhlaa wanaag baa loo sameeyay waa la soo dhaweeyay bartanaaba lagu hayay dambigiisu laguma qaadin damac baaba galayba ilaa wuxuu arkayaa dambiilo oo dhan oo Soomaaliya haysta askartii dambiilayaasha ahaa kuwii argagixisada ahaa qaar baa boonboonanaya hebel ku xumee qaar xitaa waan arkaa nabad iyo nolol taageera dabcan oo xukuumadda taageera oo maanta Mukhtaar Robow baan wadana war maxaa ka dambeyn kara Mukhtaar Robow dee dambiilayaasha kana taageera oo musab dabcan nimankan kale la haystana taada ha qabsanina askartana ha qabsanina soo wada dhaweey cunfiga iyo qabyaaladu oo waxa Soomaali bartaa dhigay hortaalka ayaan yara dhigaya ninka odayga waxaan u soo noqonayaa oo aan isagana aad iyo aad u hambalyeynaya oo aan leeyahay geesinimo qaad geesinimaduna waa waxa dunida la isku dhaafay daacadnimada run sheegnimada geesinimada Soomaalidu waxay u taqaanaa si khaldan aynu fahmin geesiga waxaan u naqaanaa ninka qabiilkiisa difaaca geesiga waxaan u naqaanaa ninka dulmiga difaaca geesiga waxaan u naqaanaa ninka beenaalaha geesiga waxaan u naqaanaa ninka aan runta ka badhari karin maanta waxaan anigu gees u arkaa oo aad iyo aad u soo dhaweynayaa mid kamida xukuumadda nabad iyo nolol wasiirka maaliyadda Dr. Bailey qolaba si awarto waayo run buu sheegay qofku waa waxaan leenahay war guud ahaan wasiiradan maanta kamida xukuumadda nabad iyo nolol waxa very important oo muhiim ah in xogta dadka la wadaagtaan waa marka caqabad ka hortimaado ma xuma ceebna ma war caqabadan iyo dhibaatooyinkan baa jira dabeetana wixii uu wadu garaabaysa runtii anigu waan u garaabay haddaan cabsana ninka la Dr. Bailey maanta wuxuu ka dhawaajiyay horow sidaan loo wada soconayba xitaa wuxuu soo bandhigay nootadka lacagta la soo daabici doono ee Soomaaliya run buu noo sheegay waa run laakiin dabcan maanta tan noo sheegayna waa run kumana dhaliilay sax baan u arkaa waay maantana wuxuu noo sheegay waana waxaan kuwan ka raadinay xaqiiqda wanaagsan qofku inuu wax iska celin mar kastaba aad ku jirtid oo bulshada sida dunida kalaba
marka dhibaata dhacdo ama marka caqabad timaado dadkay la wadaagaan sida war waxan iyo waxan baa jirta dadku dhagaxaan ma aha waa inay ka garaabaan wixii macquul ah marka lagu sheego oo caqliga kala kaashada maanta wuxuu yiri ninka la yiraahdo Beyle lacagtii aan soo daabacaynay shuruudaha naga hor waa naga go'anta dabcan way ka go'anta way naga go'anta inaanu lacag soo daabaan balse shuruudana lagu xidhay 720 shuruudood buu ayuu sheegay 720 ka shuruudood maan runtii aad hoos uga sii daadegin oo maan wad sii wada akhrisan cabsanahan laakiin inta importa ka baan soo qaatay horta wuxuu ka dhawaajiyay sheegay in loo baahan yahay 40 milyan oo lacagta lagu soo daabo waa reason waa sabab waxaan ka sugayna way cabsanahan oo aan hore ugu faraxsan in badan oo horena hadii dadkii la socon jiray aan dadka u soo bidhigan lahaa dalkeena lacag baa loo soo daabacaya waana waxaan markasta le wararka laga sii socdo dadka qaar bay khalafaan wadana ma waxa la soxo anigu maliyo waxa la dumiyo ma jecli dib ha loo noqdo halkii hala taagnaadana ma jecli war horaha laga sii socdo oo waxa soo qoran laakiin hadii halkii dhaaf booyda waranaysa war maxaan loo balan qaadi waa shacabaan hayn shacabkii waliba xukuumadda taageersanaa baan hayn ku faraxsanaa jecel wanaagooda jecel anigu qabiilku ma naan jeclayn qabyaalad iyo goboleystoona kuma naan jeclayn laakiin waxaan jecelahay wixii talaabaya positive ee hor loo qaaday markaan aragnaynay waan moral jabena dadka bilaadanka ayaanu kamid okay wuxuu sheegay 720 shuruudood 720 shuruudood waxa qayb ka ah oo ugu muhiimsan dabcan 40 milyan ayaa loo baahan yahay buu lacagta lagu soo daabaa sidoo kale waxaana lagu xidhay buu musuqmaasuqa in la yareeyo waa waxyaabo wax laga garan karo hadii la dadaalo la dhaafi karo way marka wax lagu sheego bilaadanku dabcan wax kasto isku daydid marka waxaas way dhaliilkaaga yimaadaan oo taado horaan u wadaya oo aad bulshada dhageysatid oo aad maskaxdaada furtid midhadhal baad ka keenaysaa laakiin haddaad taado chance ma bixinayo way dhaliishaadan lagu dhaliilaya horta wax duminta iyo dhaliisha Soomaali iska khaldan wax dumintu iyada waa mid gaar laakiin marka lagu criticism waxa la yiraahdaa adigoo lagu saxayo waliba constructive criticism adiga ay wax ku noqonaysa waana waxyaabaha jaanisada nimankan dunida ee horumaray waa waxyaabaha ay ka faa'iideystaan bulshada raayo runta laga warbiyo waa bulshada raxmaanka baa karaamiyay qof kasto bilaadan waa karaamaysan karaama ayuu leeyahay qofka bilaadan khaladna uu leeyahay saxna uu leeyahay inta khaladka ka tag inta saxda qaado oo waxay soo dunida ugu horumartay aad iyo aad horta marta halka waxaan uga hambalyeynaya oo aan leeyahay Dr. Beyle waad mahadsantahay mudane Dr. wasiir aad iyo aad mahadsantahay insha Allah taala waan ku soo duceynaynaa waana ku guuleysan doontaa 40 milyan dabcan ee uu sheegayna waana xukuumaddu dadaalkeeda iyo caqabadaha kala sidee uga bixi lahayd muddada u harsan ee haysato waynay dadaalka la timaadaa anigu maalintii wax wanaagsan sameeyaan waan u hambalyeynaa waan ku faraxsan waxaan soo noqon doonaa magaalada Hargeysa runtii maanta dabcan mar aan ka daawaday TV-yada Hargeysa dadka wax kaga soo duuduuba aad iyo aad baan uga damqaday arrinka waxaan ku eedeynay nimankan had iyo jeer doorashooyinka u caara guud ahaan hadduu yahay Cabdiraxmaan Cirro oo imka Ingiriiska soo baxaya dabcan hadduu yahay Faysal Calawraabe hadduu yahay Muuse Bixi haday yihiin kuwa wasiirka cadaaladda hadduu yahay maayarada Hargeysa way bulshadaas waa bulsho dhibaato kor iyo hoos ba lagu hayo maamulkii waa laga qadiy waxba laga siin maayo moral shabna waa loo geystay waxa loogu sii daray oo ummadii Soomaaliyeed ka aragtaaba qabiilkiisu doodiyay kuwa macal xisbiyada aad arkaysaan xisbiga sheeganaya ee wadani sheeganaya runta waa la isku nacay qabiilkiisu doodiyay kuwa taageerana waa qabiilkiisa kan kulmiyad qabiil baa difaacay dabatana waxay marka laba maroodi meesha isku laayaan cawska ayaa ku burbura xaafad bay ka degeen magaalada Hargeysa xaafadda daami baa leedahay wad kan naxaysa dad imka dhageystay caafimaadkii loogama sameeyo waxba oo MCH looma sameyn sidoo kale loo sameyn maayo wax la yiraahdo iskuuladii waa bal si shargaraya dabcan iskuulkii waxba looga qaban maayo biyihii lama soo gaarsiinayo arrimihii essential needs ka ahaa ee bulshada u baahnay arrimihii ijtimaaciga ama bulshada
wax allaala wax looga qabanayo ma jirto wadani wuu qaban karaa haddii xisbigan wadan iyo nagu wareerinayaan kursiga ku fadhiisto ilaan Soomaali siyaasiyiintoodii caqligoodu wuxuu ku fadhiistay iyo dadka taabacsan kursi la wada ilaalinayo oo hal qof ku fadhiisanayo wadan wuxuu qaban karaa waayo lacag bay qaataano iyagu waxay u jiraan hab dhammaantood saddexdan xisbiba hab infrastructure wuxuu u dhisan yahay hab xisbiyo ayuu dhisan yahay waana hababka runtii haddii aan la miisuus garayn aanuba aan jecel lahay ee aan soo dhaweynayn dhaqaale qaata dhaqaalaha ugu soo dhaca xafiis kasta kawcid buu ku soo dhaca Faysalkan inala hadla uu ku soo dhaca eerahan iyo dadkan taageersan uu ku soo dhaca ninka la yiraahdo Allahu musta'an Muuse Bixi uu ku soo dhaca hadduu midig garan kari waayo maxaa u diiday kale marka maana dulmi lagu wada socdaayn waa dulmi aan ku wada socno dadka qaar baa iska jibeysan oo doonaya inay maantaba saacada kaaga fadhiisiyaan saac Muuse madax noqday habar jeclaa madax noqotay kan kala madax oo qadiyadoodu aanay intaa dhaafsisnayn habar jeclaa madaxa kana la tooro war waxeenoo dhan dulmi baan wadnaa haddaynu dhammaanteen dadka maamulka Hargeysa u shideen reeshada saaqadeen maalin dhaweyta waxa laga hadlay oo la lahaa gabooyaha loo sameeyo wax la yiraahdo waxbarashada waxa laga siiyo waa afbeelkii weeye waa been deegaankooda maxaa wax lagu qaban waayay wadani waa beenaale waa qabyaaladeysta qadiyad bay ku wada socdaan dhammaantood in iyagu si gaar ah u doonayaan Soomaali idilkii maca koonfur jooga anigu kama badbado kan qabyaalad wax ku doonaya kan kalena qabyaalad wax ku doonaya laakiin qadiyadii guud ee Soomaalinimadii iyo qarannimadii haddaad ku taadaan ka hadlo waxa tahay qof bila camala wuxuu doonaabo ka hadlaya loo baahna dhalinyarada maanta kullayba horta uma dirayaan hal qodob oo kalena dadka gabooye ee xaafada haddaad gobtiin reer Soomaaliland iyo xisbiyadiino iyo ucidkiino wadanigiino kulmiyihiino war waa kuwa maanta la hadlay ilaa dadka qayb aan kana war Muuse Bixi oo adiga noo madaxweynaha cirrow adiga uu musharax ah oo uu wadanaya maanta cod ka raadinaysid oo aad u tagtaa waxa taada hal la codayo isbedel baan sameynaya waxaan keenaya maalinta aad doonaysid ku inay rixta meelaha ka niqniqlay radio qolamaatay wax furtay intaad reerkiina waxaan u difaacaysan ka hadla dadkan aynu dhammaanteen ku midaysanahay dulmiga aynu ku hayno yaanagu markii naga isku wareernay eenu gabigeena wada wareernayba waxaanu dadkana hal dulmiyo yaa loo joojin qoliyaha iyagu qabiilada yar yaa laga hadlin okay dhalinyarada waxaan leeyahay gobolka ku soo jeeda Sool oo dabcan iyagana maalinta dhaweyto dulmi lagu sameeyay war weyn waa la wada qabaa waxana oo waxba dabcan waa maalinta dhaweyto ee deeqayro Itoobiya iyo waxyaabaha malaa'ika helay hadday tahay sanaag Sool togdheer war waxan marka horeba marka wax la bixinayo Muusana ninka wax ka sugaya horta waa nin wareersan Muuse hadduu cid wax ka qabanayo ama uu cadaaliyo horta waa ninka ku sii dar maanta wuxuu Muuse gacanta ku haystaa xog yar oo kala nadiisinay wuxuu gacanta ku haystaa oo uu rabaa waliba looga taaglay inuu biinka ka jaro bambadii ku qarxilay ilaa hadda waxa uu dul taagan yahay oo ku adkaysanaya ila Muuse madax adaygani waa nin hadduu seexu soo tooso way sagiyo wuxuu ku adkaysanaya xeerkii xumaan la hirgeliyo oo dhaqaala dabcan ay reer galbeedkan iyo gaaladana ku bixinaysa isaguna khaldam weeyay ma khaldanidii la marbo saxiix ka dhacay dabatana bambadii buu ku haystaaba inuu waliba biin ka jaro wallahi say ku qarxaysa Muuse oo adiga ku qarxaysa way dhageystaan kulli dabcan ku aw shaqeeyo waxaas adiga ay ku qarxaysa maanta banka iska jirta war u daaya ha ka dhicin salaamada qaab ugu sugtaa jira hadii kalena sii socod saadamaad adiga ay ku qarxi doontaa waayo ummadan waa ummad muslima wadad islaama gurigii guurtada ku dhaartay oo dhinacyada qabsaday culimadii baa dhinacyada qabsatay ilaa hadda wuxuu ku dhiiran yahay oo ku dagaalamaya inuu meel maray waayo ninka bedeli kari waayay war ninka habreerihi ay isagoo nool oo hooyadiina nooshay ilaa hadda wasiirkii warfaafinta ee cayda qaawan ee qayaxana halka dumarka ugu qoray ilaa hadda uu haysta marka horta ninka Muuse lidaan ninka wax ka sugayo eela Muuse wax ka imanayaano horta waxa tahay nin dee wareys waa kuwa maanta aan uga taagnay alle war askar iska ilaaliya war Soomaali maantana waayf birina waa aakhiro war wadaad xaq sira oo dhiigi caba
iyo askari dhiigyacaba dhammaantood iska ilaaliya haddii aad tala qaadanaysaan. waxaan usoo noqonayaa dhalinyarada markaa reer laascaanood. horta waan ka xumay wanugu nin kastoo dulmi lagu wado soomaali daayo haddii gaal la duudsiyo ninka daayidhioo loogu dawgaran ma ogoli. waana dulmi reer gabiile iyo ku samaynayaan iyo hargeysa iyo xaafadiis. balse hal arrin baa jirto sidaydaba aanan sooba dhaweynba ama laascaanood noqdo ama reer burca noqdo. horta anu ma soo dhaweeyo nin soomaaliyeed ama dhalinyaro soomaaliyeed baa etoobiya wax ka soo baranaysa. waxaan jeclaynay masar iyo haddaad xitaa laga tegi waayo dalkooda inay ku bartaan. turkiya oo kale, masar oo kale, bakistaan oo kale, even xitaa kenya, uganda oo kale waxaba waan soo dhaweynaya. laakiin hal mid baan kula dardaarmaya kolley laydinka taageeri maayo. hal mid oo dardaarnuman bartaa idin marinaya haddii aad iminka dhegaysanaysaan iyo haddii ay dhegaysan doontaanba. dhalinyarada reer puntland laga diray ee loo diray dhinaca iyo meesha la yidhaahdo etoobiya iyo kuwa somalilandta laga diray ee loo diray dhinaca iyo etoobiya waxbarasho scholarshipa bixinaysa. dardaarankaan idin siinaya waxa weeyaan nimankan amxaarada waa nagu cadi. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam siduu sheegay cadowgaaga inaad luuqadiisa barataa waa wax wanaagsan oo sharkiisa ayaad ka nabad galaysa. waraf amxaariga un bartaa ka soo barta anugu wax kale oo barta aan ku ogahay oo etoobiya oo inooga soo kordhaya ma jirtee bal af amxaariga. waayo qofka amxaariga bartaa ee si fiican af xabashiga u bartaa wuxuu ogaadaa cadaawaddu intay gaadhsiisan tahay etoobiyaanku ay soomaalida u qabaan. qof kasta oo luuqadaa barta markaa taa bartaan leeyahay. maanta waxaan la socday oo kale EPDRF waxaan idhaahdee xisbigan EPRDF ay ku midoobaan oromada, tagrayga, dhabuubta, arrimaha noocaasa. waxay maanta dib ugu doorteen chairmanka xisbiga ninkan la aada aabiyey oo laga dhaadhiciyey colaadan guunka ee soomaaliyeed. waana arki doontaan weligeedna etoobiya inay soomaali arxam u gasho waa habeenkii xalay oo tegey. qof ku xumeen waa laga yaabaa. waa SSDF dabcan markii dowladda soomaaliya baxaysay dee xumaan bay wadi. SNM soomaali duminteeday wadi. ninka halkaa taga madaxweyne kastoo halkaa heshiis la soo galaa dabcan wax aan soomaali u wacnayn unbaa ka yimaado. dhalinyaradaa waxaan leeyahay amxaarigo soo barto. anugu wax kaloo halkaa etoobiya aad ka soo faa'iidaysaan oo kale dhakhtarnimaydaan ka faa'iideen, injineer baydaan ka faa'iideen, wax alaale waxaa ka faa'iidaysaan baan jirin. etoobiya waa cadow soo jirayna weligeedna saas cadow nagu hanaysaa. halkaa ayaan horta dhigay taa oo kaga baxayaa. waxaan usoo noqon doonaa iyadana baaqaan bartan u marinayo shacabweynaha ama shacabka reer puntland. shacabka reer puntland waxaan leeyahay dabcan doorasho ayaa soo foolle. doorashooyinku xanaf badan bay leeyihiin. waxaan leeyahay dabcan qabyaaladuna iska ilaaliya. waayo doorashadii haddii qabyaalada la isdhexgeliyo mashaakil bay leedahay. qofka waxaa ku doorataan barnaamijka uu soo dhigto. dabcan labada niman le iminka maanta dabcan ugu cadcad xaggaa iyo puntland waa cabdiweli caligaas oo isagu professor cabdiweli caligaas oo dee madaxweyne muddaba ka soo ahaa iyo ninkan isna maanta musharaxa ah ee reer dabcan isna waa reer puntland ee lagu magacaabo faarax cali shire. dabcan master shire anu kolley qofka magaciisaan usoo gaabiya. horta kolley waan ku xidhan oo cabdiweli caligaasna dee in badan ba waan dhegaysanayay. waxnay abiskuulmeelna ma wada joogo warna iskuma seegana maadaamaan halka joogo. horta anugu maihi dabcan dadka dee halkaa deegaankaa kasoo jeeda ee iyagu isimada weliba malaha bulshadu iyagu halkaa reer puntland ma doortaane isimadaa doorta. laakiin dadku baawer bay leeyihin oo baawarkooda waxa weeyaan dareenkooda waa in la qiimeeya. ninkaa la baxay xisbigiisu run iyo rajo muddaba waan dhooxayo muddaan dhegaysanaya. waxa uu eegyahay nin waaqiciya oo waxa meesha ka socda ama bulshada dareenkooda la socda. waa inta anigu aragtay deere gaaban. waayo had iyo jeer marka su-aalaha la weydiinayo wuxuu ga jawaabayaa sidii caadiga ahayd ee xaqiiqada ahayd ee meesha taala. mee waxa had iyo jeer waxay noo sawiraan nimankan kale qaraxyo aanay lahayn. waxaasaan qabanayaa, waxaasaan kalaan samaynayaa, wax noocaasa. dabcan waan soo dhaweynaya. dee cabdiweli caligaasna ilan meesha mudduu xukumayo wax qabadna wuu geystay oo runtii dee waxbuu qabanayay. waxay u taallaa shacabka reer puntland inay isagana ku qiimeeyaan wixii ugu ballan qaaday, wuxuu ka tegey iyo wuxuu qabtay. dabeedna isku kombargareen oo idhahdaan maya intuu ka tegey baa haddii dee intuu ka tegay ay badan tahayna dee intuu ka tegey baa badan. haddii intuu qabtay ay badan tahayna dee intuu qabtay baa badan.
waxaan leeyahay si qurux badan baan ilaa hadda u arkaa inay ugu socoto ololaha ninkaa odayga ama doorashadu nabadgelyo aan rajeynayaa, waxaan rajeynayaa horumar. haanina gunbay ka tolantaa. waxaana jecelahay habka doorashooyinka siday dabaan waxaan soo dhaweeya haddaan cabsanahay election iyo tartanka, waayo tartanku wuxuu meesha ka saaraa dictatornimo. dabcan soomaalina kulleyba iska ilbixi doontaa oo way gaari doontaa xilli qofka aynu qabyaaladi laamika naga marnaa aynu qabyaalada ka baxno. laakiin dee candhana waa xubin oo xagga hoosaa laga soo bilaabo reer Puntland doorashada saa marka dambe way gaari doonaan one man one vote dalkoo dhan baa gaari doona. hala habay kuwan kale ee xisbiyada guud bay nimayahow anu haddaan cabsanahay meelaha qaar ma doonayo inaan sii dhex galo, mana rabo, mana kale Soomaali waa soo kemi xisbiga isagu haraa dee isaga u taala. laakiin halkii horeynu taagnayn waxaan qabaa haddii la sameeyo waxaan la yidhaahdo allahu mustacaan multi party system, free and fair election aynu gudubno inaynu iska waay arki doono. dunidu way soo wada martay. Rome was not built one day. waxaan waa la soo wada maray. berigi hore goboleys bay ku dooran jireen, gaaladan aad arkaysaan qabiilka iyo arrimaha noocaasa way leeyihiin. anigu in xisbiyada dabcan la sameeyo oo xisbiyo badan dalka laga sameeyo way soo dhaweynaya sidaa xukuumadda way soo dhaweynayso. imaan dhowto xitaa ku-xigeenka prime ministerku uu soo qaadayay sharciyadii asxaabta badan nabadeena oo hadday xisbi noqoto iyadana waynu joognaa. ilaa hadda xisbi kumay dhawaaqin. xisbiyada kale ee lagu dhawaaqayna waynu soo dhaweynaynaa, kuwa iman doonana waynu soo dhaweyn doonaa. waxna sasbaha ka qaadina bulshoy, waayo xisbigu hadda doorashadii lama gaadhin. wuxuu u baahan yahay waqti isaga in la siiyo uu structurekiisa iyo nidaamkiisa iyo memberskiisa iyo wixiisa oo dhan uu kusoo dhisto si hadhow iyadoo aan qabyahayn marka doorashadii la gaadho uu tartamo oo aan dib u dhac u iman. markaa nimankan xisbiyadooda wata waxaan odhan lahaa dee taariikhduna qoraxdii timaado muxuu qalanku sheekiye hadba qodob la yaab liyo ma hadhooyin qoraya. taariikh baa meel lagu qoran oo nin kastaba hadhow markuu doorashadii tartanka yimaado ha ka sii hor dhicina ka aad arkaysaan nuuxu yahay sooba dhaweeyaba way hadhow isagun bay dhaawac ku noqonaysaa iyo dhibaato. laakiin haddaad maanta aad tidhaahdo ilbaxa oo xadaarada ummadda Soomaaliyeed la yimaada dhalinyarada Soomaaliyadna waxaan leeyahay waa nin meeyaha u dhalinyaro way aragnimada oo loo baahan yahay. waxa kaloo liidinka baahan yahay annagana looga baahan yahay inaynu xisbiyo u gudubno oo aynu xisbiyo furanno. dabcan waynu kaga bixi karnaa dhibaatooyinkan maanta ina ragaadiyey ee 4.5 iyo qabiilka oo dabcan dhalinyaradu hadday ama kareer Kismaayo, kareer Garowe, kareer Hargeysa, kareer Burco, ka Garbaare ka yimi ka oo ay ideology iyo fikir isku wada raacaan halkii qabiilka isku raaci lahayn. way xisbiyadu waa waxyaabaha dunidu markii tijaabisay ay kaga baxday dhibaatooyinkan ama cunsuriga ama nacayb. halkaa ayuun baan ka taaganay kii kastee qabsadaba waxbana ummadda ayaan lagu sii kala fogeynin. qof kastaana dabcan ra'yigiisa dee xor buu yahay. laakiin waxa qurux badan xilliga ay soo dhawaato inaad fikirkaaga iyo aragtidaada iyo waxaaga iyo waxaad ku diidan tahay waxaba aad soo bandhigtid. xisbiga isagu qabiil isku koobaana dee isaga u taala waanu isagu dhaawacuun isu geystay ayuun baan u arkaa oo uu ka badin karo xisbiga isagu Soomaali oo dhan isu keena ubadaaba qabiilha isku ururiyo. ninkan qabiilka isku ururiya meel ma gaadhayo. waa haddaad qabiil isku soo koobtid meel lama gaadhaysa. halkaana xisbiyadana barta ayaan dhigay. dabcan xisbinimaduna kuwa waxaan leeyahay kuwa xitaa reeraha isku soo koobayo xisbinimadu reer ma aha, qabiilna ma aha. idinka laftigiinu haddaad doonaysaan dadkan dee xisbiyada samaystay ee maanta madaxdan sare ee xisbiyada samaystay idinka qudhiinu qayb naga mida baa tihiin. talooyinka waa nagu leedihiin waanu siinaynaa. u malayn maayo dee malaa kolley nagama caqli gaabnidin. waxaa qurux badan xisbigu inuu noqdo xisbi ay gobolada Soomaaliya oo dhan bulshooyinka ku dhaqan ay ka dhex muuqato ayuu xisbi markaasoo attractive noqonaya oo xisbi soo jiidasho leh noqonaya. laakiin xisbi qabiil wato ama uu reer wato horumar ma gaadho. even xitaa haddii hal gobol isku soo koobo ma guulaysanayo, waayo dee halkaa reer ama intaa isku haybtaa un baa u codaynaysa. qabiil kastana Soomaali baa ka badan iyo Soomaali oo dhan la isku daray. qabiil quro meel u baxay tusaalaha dee adeer malaa marka anagana maagaysaan ummadda kale Soomaaliyeed ayaa waxaad lagu tiraahdaa dabcan warnimo idinkuna qabiilada iska daayay. haddii dee waa runba ilaa maba diidanayba haddii qabiil wax noqonayo isaaq baa noqon lahaa. idinkuna haddaa xisbiye qabiil ku furataan
dee wax ma noqonaysaan, doesn't make any sense, micna ma keenaysaan. taas waxa weeyaan waa inta aan iyagana aan kula talinayo nimanka maanta xisbiyada ee damaca leh ee siyaasadda wata. waxaan leeyahay idinkuna xisbiyadiinu ha noqdaan xitaa qaar ay ka dhex muuqdaan bulshooyinka waqooyi degan, hadday in kuwa reer laascaanood, hadday in kuwa reer burco, waayo lagama waayi karo. laakiin structural maalin kastaba kusoo dhistaan, anna madaxweynaha qaadanaya, kana prime ministerku qaadanaya, xisbigaba inaga alag oo wax noocaas. war way joogaan dee baarlamaanka oo aqalka sare way joogaan, kuwa meel kastaba kasoo jeeda baa jooga attractive la yimaada. kolley hadal uu maalin dhowta lahaa xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay kaga dhabay waa hadday dhabkaas wuxuu lahaa xisbigagu noqon maayo xisbi madaxa oo ku kooban iyo muqdisho intaa yar baan ku darsanaya oo gobolada oo dhan baan gaadhsiinaya. goboladana dee qayb bay keen, kuwa waqooyina qayb bay keen. waynu sugi doonaa xisbigan dabcan xisbi dee ilaa hadda ma odhanayo waa xisbi nabad iyo nolol, laakiin magacan weeye waa hal ku dhig. hadday xisbi samaystaan insha allahu tacaala aniguna xisbiyada dabcan wixii aan maskax ku kordhin karayno ama aragti ama aanu taageerayno waynu sugi doonaa insha allahu tacaala, kamana hordhacayo. walaalayaal waxaan usoo noqonayaa mawduuca dabcan gebagabaan ku jiraa. inta yar ee dhextaalka waxa weeyaan aan mar kastaba kusoo celinayaa war nin u dhiigyacab iyo nin isaguna dabcan askari ah iyo al-shabaab shalayta dadka leenayay oo argagixisa ahaa, caqliga saliimka iyo garashadu ma qaadanayso in lagu fuudiyo mid hore oo isaguna argagixisa ahaa, iyo in la yidhaahdo dabcan inuu ummad dabcan uu hogaamiyo wax la aqbali karo ma aha. waayo ninkani waa dembiile, dembigiisuna dembi cad buu ahaa oo terroriisa buu ahaa oo weliba halis badan buu ahaa oo aanu arxandarrow dadku leynayay bu ahaa. haddii dembigiisa laga dhaafay baabuburo sidaaba inuu idhaahdo ummad baan hogaaminaya waa qalad. askartaana iska ilaaliya dhiiggacbada. dabcan dee siyaasadda kalena waxaan leeyahay ka dhiga iyadana flexible oo baasha flexible ka dhiga. anuu ma taageersani mana soo dhaweynayo, waana raayigayga iyo aragtideeda horena waan uga hadlay. hadda iminka soomaalidu ka booqaysaa 17 September bishan iminkayna soo dhaaftay September ayaan waxaan ka hadlayay oo lahaa bulshada koonfur galbeed damacaasna waan dareensanaa inuu ninkaasu sharaxi doono. mistake kastaba ha noqoto raggii dabcan marka hore dee wadwaday iyada oo la wadwado oo aanan war iyo wacaaltoona u haynba inay xukuumaddan nabad iyo nolol xitaa hadday iminka iyagu taageeraan, waa hadday iminka damaca taageeraan oo warkaa ay soo saareen uu feeg noqdo. haddana cabsaana waxaan ninka soo horjeedaba waa inuu mabda baan u arkaa waxa la yidhahda argixisada. dunidana waxaan ugu jeclahay qofku markuu igu caddaado mabda ayaan ka bixin karaa faallo aanan ku degdegin, laakiin hikidaa waa ku wareera. qofku waa inuu mabda waxaan hoosoo kale waa laga tegaya, ama qof dhaliil ama qof diid. mabda argixisadu waa mabda, dadka in la laayaa waa mabda, waa ideology, waa fikir weliba khaldan. diinta islaamkuna dee midaynu iminka ma aha inagu cusub, waa taanu ku dhalanay, waa taanu ab ka ab aanu ahayn, waa tii hooyaday lagu meheriyey, waa taan weliga. diinta islaamku ma aha waxa ciyaar gashay. diinta islaamkana meelnaba kagamay soo aroorin qof muslina oo aan waxba kugu samayn, xitaa qofka gaalka ifan gaalka cad diinta islaamku ma dhigayso in la dilo. kitaabkaa soo qaataan oo qur-aankaanu la yimaada. qur-aanku ma aha iyo kitaabku iyo diintu la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan ma aha. waxaynu ka soo gaadhnay awooyadeennii kontonaad haddaynu soomaalina dad muslimna baynu ahayn. ma ogola in qof dhiiggiisa gaal iyo muslimba khalad lagu daadiyo. ka u ololeynayaana waa dhiiggacab kale, dembigana qayb ayuu ku leeyahay. taas ayaan ugu leeyahay qofku inuu mabda'iisa caddaysto. nin argagixiso shalayta ahaa dembigiibuu ka baydhay. argagixisu war xasan daahir aweys waa argagixiso, in la dilo baaba qurux badan oo waayo waa nimankii soomaaliya markii dalkii burburay iyaguna ummadda rabishka ugu badan u geystay ee meel kastaba dhigta uga geystay. oo axmed madoobe in dembigiisa lagu qaadana fiican ma aha in la yidhahdo isaguna maantana oo wada arkaysaan wax allaala wax ka soo naascad baan jirin. xabsiyuu samaystay, dadka si xun buu laayaa, si hoose buu u dilaa oo argagixisannimo ah. marka nimanka argagixisada anugu kolley sensitive baan haddana cabsaanahay guud ahaan ka qaba, askartana ku dara. intaas weeyaan aragtideedu. waxaan kaloo leeyahay bulshada aan ka beermay ee reer Hargeysa iyo reer Burco, warnimayahow bilaahi calaykum ha inaga soo dhex baxdo oo aynu yeelanno dad dulmiga ka dhiidhiya oo dadka jilicsan inta inagu isku mashquulsanahay dadka jilicsan ee nagu dhex nool wuxuu qabta. waa kuwa maanta bulsho weyntaa wallahi nahay ee gabooye ee weliba aan cidna waxba u geysan, dhibna aan u geysan, ee hawshooda hoose shaqooyinkooda iska wata.
waataa maanta lagu dulmiyayo halkeen lahayn waa caasimadii Hargeysa iyadana laga joojiyo de qolo kasteena haddaad idukuna dulmiga anigu intii taalkayga waan ka hadlaa qof kastoona dulmiga adiga ku taala waa haddaad dulmiga aad waxba ka odhan weydid dulmi walban baad qayb un baad ka noqonaysaa dulmiga ummadda Soomaaliyeed meel joogtaan baadiyaad baan idin salaamayaa noolaada guul iyo gobonimo ayaan idin rajaynayaa iyo wax wanaagsan iyo khayr iyo barwaaqo qabyaaladaystuhuna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed fayraska kala dhex baxo waxaan idin kaloo aan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa haqoosanina qof kastoona dabcan ha isku dayin waxaad adigu maskaxdaada ku haysatid macay ifan aniga inaad qadarka ka horumarisid way wax kastaaba qadar bay horta ku socon waxaan waa qadar bay ku dhacayaan qadar baa wax lagu helaa qadar baana wax kastaba xukuma aad baan idin salaamaya laakiin se dad dulmo walayaasha fartan ku fiiqan dulmo walana wax loo hiiliyo walaalayaal maaha oo waxyaabaha Soomaali hadii nahay dhibaatada inoo geystay dhiigacab iyo dulmi wala shalayta dadka leenayay oo bareersanaa in la barbar istaago halkii laga oran lahaa warka dadka laga qabto ma ku taageersanahay waxa la wixii maanta dabcan ka soo baxay ninka la yiraahdo Mukhtaar Robo lagu hor istaagay waan ku taageersanahay ilaa isaga iyo kooxdiisa iyo khayrkii oo dhan in loo dhiibo xukun oo bulsho xukun loogu dhiiba waa xaraan maqdaca aad baan salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh